السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومالنما سنين تاريخنا يكون بيجنتهاي لبضع بيش اللحاد سنة كلابضع كرشان لباتك 10 كنا ما أنت وكنقول دونا متكو سارسين جراماتيكا أما جرامك إيرا النقطة الفيرب avere فعل كلاهشا فيرب وفعل كي avere والهشا مركا وحنا أركي دونا مركا قاب كلو أنو أديكسن دونو مركا لبي حلي أيان سوق هذا إن حليدو اسم بدري دونان sida mataqaana ay luqadaha kale marka modo indicativo marka si fudud aan u sheegno modo qaabka indicativo wax tilmaama marka waxay tahay waa wax markaasi wuxuu tilmaamayaa waa xilli marka tilmaamaya xilligaas la joogo marka ku tilmaamay marka waxaan soo qaadanay presente iyo passato marka presentigan ku hormarayna meesha waxaan u yeelaa horena waa u soo qaadanay magacyaalada ama pronomi magacyaalada iyo oo aniga ah tu oo adiga markaasi ah lui le oo asaga ama yada ah noi oo anaga ah voi oo idinka ah loro oo ayaga marka sidee u kala qaadanayaan marka la joogo il verbo avere modo indicativo ayaa rabnaa inaan ogaano marka waxay tahay iyo oo aniga waxaan leeyahay ama haysta tu ay hadaas ama akaha laguma dhawaaqay laakiin qoraalka way soo gelaysaa marka iyo oo marka tiraado waxa dareemaysaa oo kaliya ku dhawaaqaysa laakiin markii la qorayo hadaasna waa la socotaa ama akaha iyo oo anigu waxaan leeyahay ama haysta tu ay adigu waxaan leedahay ama haysata lulay marka ayada ama asaga waxay qaadanayaan oo macnaheedu waxay tahay leeyihiin amaba uu leeyahay raade noi abbiamo anagu waxaan leenahay noi abbiamo anagu waxaan leenahay voi avete adinku waxay leeyihiin loro hanno ayagu waxay leeyihiin loro hanno ayagu waxa ay leeyihiin dabcan waa dareemi kartaan waxaan u maleynayaa inaad fahanteen in badanna luqadda wax badan oo maqalka laga yihiin inay soo gaareen ayaan u maleynayaa marka waxaan u qaadanay qaab grammatical aan u qaadanay marka presente waa ficilka joogtada ah halkaan kale u gudbaynaa markaas aan filayo waa ficilku waa isrogay kani wuxuu ka sheekeynaa presente marxaladda markaas la joogo ayuu markaas looga sheekeynaa hadda waxay noqonaysaa passato prossimo ficil tagay passato prossimo ficil tagay ayaan ka hadlaynaa marka waxay tahay iyo oo avuto marka halka waxa ka maqan iyo marka waa taasa hore u soo qaado marka oo avuto anigu waan yeeshay ama waan lahaa waan yeeshay ama waan lahaa Soomaali waa qof basi uu fahmi karaa ay avuto adigu waad yeelatay ama waad lahayd avuto ama waxay noqon kartaa asaga ama wuxuu noqon karaa ama waxay noqon kartaa ayada ama asaga avuto abbiamo avuto anagu waan yeelanay waxay noqon kartaa abbiamo avuto casa abbiamo avuto macchina guri ayaan lahayn gaari ayaan lahayn marka lahaashi waxba raacayo markaasi oggetri marka hadda kaliya waxaan baranaynaa verbo avere wixii raacay maanan soo qaadanin ayagana u tagana avete avuto adinku waad yeelateen ama waad lahayd ama waa lahaydeen hanno avuto ayagu way lahaayeen marka ficilku wuxuu ku tusayaa inuu tagay marka intaba ficilka halkaan ku jira iyo kan aad arkaysa intaba waa il verbo avere oo marka isrogrogay sidaan filayo waxaan u maleynayaa inaad ka bogateen waxaan jeclahay casharkan wax badan inaad dhuxdaan oo aad ku ceshataan maadaama uu marka ka heli kartaan si fudud kanaalkeena ka heli kartaan inta aan ku kulmi doono casharkan mid lamida waxaa idinkaga tagaynaa anagoo wada jirna nabadiyo nooli kulantee hasaate waxaa naga xasuusinaa inaan naga ilaawin like-ta share-ka isla mar ahaantaana asxaabtina la wadaagtaan waa maasantiin ciao